السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mid ka mid ah qisooyinka cajiibka ah ee aanu toddobaadkan idiin soo gudbinayno. haddaba sida caadada ah qisooyinkeenu waxaynu ka soo qaadanaa galka qisooyinka taariikhda galay ee uu qoray qoraaga reer Kuwait ee la yiraahdo Abu Talaal al-Hamrani. haddaba qisada toddobaadkan aan idiin hayo waa runtii qiso aad cajiib u ah. haddaba yaana warka idinku daalinin. qisadu waxa ay khusaysaa qoys u dhashay waddanka Imaaraadka Carabta oo hanti fara badan leh, oo waliba hantidoodu aysan ahayn hanti caadi ah oo uu ku tilmaamay qoraaga sheekadan xogta uu helay inay ahayd hanti dhaaftay. taajir isnacay waa laga tegay, taajir isnacay aa la marayaa. macnaha waa hanti waali ah la haystaa. haddaba qoysku waa aabba iyo hooyo iyo wiil ay dhaleen keliya. wiil qoyskaas hantida leh ay dhaleen waad garan kartaa marka macnaha uu qoysku ugu fadhiyo iyo siduu u kibirsan yahay iyo meesha uu isla joogo waa fahmi kartaa. wiilkii waxaa loo diray waxbarasho inuu u baxo waddanka Ingiriiska. halkaasuu marna wax ku baranayaa, marna holiday soo aadayaa. heer wuxuu gaaray 5 maalmood markuu wax dhigto sabtida iyo axadda diyaarad ayuu soo qaadanayaa. markaasuu aabihiis iyo hooyadiis la joogayaa Imaaraadka. haddana aroortii halkaasuu waxbarashadii ka aadaya, diyaarad kaluu raacayaa. wiigii marka 2 maalmoodna wuxuu joogaa Imaaraadka, 5 maalmoodna wuxuu joogaa Ingiriiska. cunugii saas ahaa wuxuu soo bartay dhaqaalaha iyo howlahan iyo waxyaabahan soo bartay. wuxuu dib ugu soo laabtay waddankii Imaaraadka. waxbarashadii wuu soo dhameeyay. odaygii aabihiisa oo qof da' noqday ayaa wuxuu ku wareejiyay hantidii. macnaha wareejin gooniya ma ahane inuu shaqadii odaga kala wareego oo odagu iska nasto, isaga iyo xaajiyadiisu iska nastaan. wiilkii marka kambaniyadii oo dhan wixii maamulkoodii shaqadoodii markii horena waxbarashada inuu barto dhaqaalaha iyo howlahan waa inuu maaragtay ganacsigooda maareeyo ayuu soo bartay. wiilkii marka dee wiil iska edboon oo fiican iska noqdo. inta badan waxaa la yidhahdaa dadka dhaqaalaha leh ee caruurtooda dibadaha u dira in yarow fiican ayaa badbaada, inta kale waxay galaan duurka, suuqay galaan. marka ninkii wiilkii inta badbaaday ku jira wiil aad u fiican u noqdo, baari u ah waalidka, hantida uu ilaaliya aabihiis. hantida dee isagaa iska leh. odaga hadduu dhinto soo isaga dhaxli maayo, isagaa jooga. marka waa hantidoodii. marka hantidiisii inuu ilaashado. shirkadaha adduunkoo dhan ah waxaa lagu leeyahay xafiisyo inta badan. shirkaddu waxay ka shaqaysaa nolosha dadka, waxyaabaha ay cunaan, cuntada caadiga ah. hadday tahay digaaga laga keeno Brazil, dhulkan, meelahan, meel walba khaliijkoo dhan waxay ku leeyihiin xafiisyo iyo makhasino. baabuurta tareelayaasha kala socda ee maaragtay ka shaqaysa hawsha waa yaabaysaa. maalin maalmaha ka mid ah isaga oo ku sugan airportka magaalada Beirut ee waddanka Lubnaan, muddooyinkii dambana ku fakarayay allay leh markan inaad iska guursato oo awlaad dhasho waaye. oo macnaha maadaama businesskii uu fariistay, howlihii aad kala hagaajisay, markan de inaad guursato isagoo markaa niyadda ku haya. airportka magaalada Beirut ayuu yimid. wuxuu u soo jeedaa isagu magaalada Dubai. diyaaradii sugaya airportka meeshaas joogaa. wuxuu arkay qoys carab ah oo 3 gabdhood iyo aabahood ah iyo hooyadii 5. gabadha weyn waa 21 jir meelahaas. waa gabar haddee ilaahay qurux ku manaystay aan caadi ahay.
qaabkay u dhisan tahay jirkeeda, wejigeeda, waxeeda. wiilkii taajirka ahaa gabadhii uba iska dhex arag. war waxan maxay ahayd? ma adaa lagu soo diray? maxay ahayd? wuu fiiriyey. marka kuwa lubnaaneysa oo aeroboortka ka shaqeeya ayaa ninkan yaqaana taajirka ah, way u khidmeeyaan, xoogaa lacag u siiyaa. nimankii u diray wuxuu yidhi qoyskaas iisoo ogow xogtooda ee ii keen. shaqaalihii uu ahaa qoyskii soo waraystay, waa u soo laabtay. wuxuu yidhi qoysku waa falastiiniyiin, way qaxayaan oo maaragtay meelaha waxay u socdaan hadda meel la yidhaha Brazil. haye nolol bay raadsanayaan oo dee dadka meelaha ka yimid oo dhibaatada Israa'iil ay ku hayso oo iska qaxaya oo Brazil iyo meelaha inta tagaan kadibna Maraykan iyo dhulka dad oo iska socda waa nolol raadis waayo. marka diyaarad Brazil u socota oo 4 saacadood kadib imaanaysa ayay airportka ku sugayaan, taasay tikidhadeeda haystaan. marka halkaasay maaragtay kasii soconayaan, waa soconayaan. okay yiri wuxuu dhahay tikitka diyaaraddaas iisoo ogow available ma yahay, ma la heli karaa? jawaaba loo gooyay, dubaydii loo socday wixii dhan waa la iska day rabaa. warninka muxuu ah? warninka caadi ba dee lacagtaabde waa waxay rabtay kuu samaynaysaa, meeshay rabtaa iyadaa kaa adeejinaysa. ninkaan niyaddaa kusoo dhaco dadkaan iska raaca, bal gabadhan saa uun mar ula sheekaysato camal. Brazila loo raaco. ninkii tikit waa la helaa. ninkaan tikitu ka goostay diyaaradda qaybta maaragtay dadka qadeeya ay degaan oo diyaaraddu ka fariistaan, business class la yidhahdaa. dadka aadka u qadeeya la yidhahdaa. marka meeshaasuu ku raaxaysanaya, meeshuu fariista. diyaaraddii timid tii Dubay waa la iska kansalay, boorsooyinkiisi wixii halkaan u soo wareejistay, dhag waa la haday, hawadaa la galay. waa la socday, waa la soo degay. markii la soo degay ninkan dee Brazilka wuu tagaa, ragaa la jooga, la shaqaysta. chickenka ama doorada ugu badan ayaa laga soo dhoofiyaa meesha. digaaga ugu badanaa laga soo raraa oo Sacuudiga iyo dhulkaan laga cuno dhan. shirkadaha ninkan marka shirkadihii wixii uu la shaqeynayay dhana Brazilka meelahaas dhan waxa fiishay iyo dad shaqaalay wax badan u leeyahay. airport ka degay, telefoon wacday, gaari weyn hal ii diyaariyo oo 10 qof qaada ay ku dhawaad iyo boorsooyinkooda. soo socday odaygii gabdhaha watay ula hadlay, waa isbarteen. haye sidee tahay? waa fiicanahay. adiga maxaa ahayd? aniga waxaan ahay oday falastiini ahoo caruurtiisii wata. adigana? aniga waxaan ahay nin ganacsada oo imaaraati ah. soo dhawow walaal, see tahay? alxamdulilah. haye xaggee rabtaan? wallahi waxaan rabnaa magaalada inaan galno oo hotel meesha raqiis iyo ka raadsano, kadibna guri iyo wax ka doonano. hadda wax gooni aan u socono male, anaa idinsii kaxaynayo. haye gaariga soo qaatay, markay boorsooyinkooda waxooda soo dhammaadeen, soo baxeen, gaariga soo saaray. odayguu la sii sheekaystay. nimankii la ballamay wuxuu yidhi dad martiyaa ila socda, suqa diyaarsan hala ii diyaariyo. macnaha apartment wixiisoo dhan isdul saaran yihiin diyaariya. niman Brazilian oo isaga la shaqaysto, shirkado iyo ganacsi wax ka dhexeeya. isla markii waa loo kala ordaade. ninkan baashu waa shaqaynaysaa, caadi ma ah. guri diyaarsanaa dadkii falastiiniyiinta u dejiyey. gurigaan iska deg uu yidhi, anaa gurigu kareeyey, marka inta aad nolosha wax ka fahmaysaan dega. hotel aan ka fogeen gurigana wuu degay. maalin walba marka gaariga soo qaataa uu u yimaadaa, wuu la soo adeegaa. odaygii oo la saaxiibay, gabdhihii oo la sheekaystay, ciddii waa isdhex galeen. ninkan waa soo rabay. ninkan markuu 3 toddobaad la joogo ayuu wuxuu dhahay, adeer dhegeyso, anigu shaqo badanaa ii taaluu yidhi. waxa shaqadan aan u qabanayana gabadhaada weyn aan rabaa. aniga gabadha weyn inaad isiiso.
haddayse rabin oo iska tegaayo aniga la intaanoo lacagana qaata magaalada la qabsada waa kaas hadday rabtana waa ka xaysanaa odagii dee waaba fursad soo martay nin taajir ahoo cajiib ahoo khatar ah oo gabadhiisa soo doonay awalba nolol raadis oo odaga wuxuu yidhi gabadhaydii ninkaa ka war waana nin dhallinyaraa dee nin odaya maaha oo iska qurxoon fiican lacag haysta dhaqaala haysta guur kaasoo dalbaday ka waran aroos inuu kuu dhigayo cajiiba lagu geynayo muxuu ahaa guri qasriga lagu dejinayo imaaraadka annaguna dee awalba nolol raadisa ahayne hawshaada iska qabso annagana dee aan iska noolaan haddaadan wax kale kuu qarsooneen waxba ima qarsoonay tiraa haye muwaafaq waa ogolahay wiilkii waxaa la yidhi haye gabadhii waa ogolaatay kaan gabadhii soo kaxaystay ciddina waa soo raray imaaraadku meel ka dejiyey gabadhii uu la degay aroos waxaa loo dhigay cajiiba aabihiis iyo hooyadiis dee keligiisii leeyihin hantidoo dhan isagaa maamula suurraba ugu baashaalay arooskii ugu xirnaa meesha ala dhigay guri weynuu degay nolol dee wuxuu galay aan caadi ahayn farxad gabadhina nolol aada u wanaagsanay gashay wakti badan ma jiro sanadkii ugu horreeyay wiil sanadkii labaad wiil kale dhashay kii saddexaad wiil kale kii afaraad wiil kale kii shanaad wiil kale 5 sano markay isku daba xijisay baa dhakhtarkii wuxuu yidhi xoogaa u kaadi boobsiis badanaa gashay xoogaa culays marka xoogaa waa inaad nasataa ilaahay dee waxbuu maaragtay qof walba qalbigiisa geliyaa ninkii yarka magaciisa waxaa la yidhaha cabdiraxmaan qalbigiisii marka waxaa soo galay warniyow gabar maxaa u dhali weysa nin gabar wada hadduu arko wuu istaagayaa gabar yaruu dhalay nin wata hadduu arko warniyow aniga gabar maxaan u dhali waaye gabadhiyo gabaraaba layska dhex arkay waaba la jeclaaday waxaan maqli jiray hebel islaantu wuxuu ku furay inay gabar dhashay gabdhay dhashaa ku furay dhinkana wiilay dhashaa inuu ku furo ayaa kusoo dhow macnaha jacaylka ilaahay uu qalbigiisa geliyey uu gabar jecel yahay ka waran waa wax maaragtay adduunyada ku cusub ay leedahay dadka qaar macnaha qof aada u jecel gabdhaha wiilasha in la jecel yahay waa la arkay laakiin gabar ilaahayuu baryaa sadaqa badanuu bixiyaa ilaahu gabar isi ilaahu gabar isi ilaahu gabar isi ilaahay amarkiisa ducadiisa ilaahay waa u aqbalay nin iska niyadsan oo iska ahaa cabdiraxmaanka sadaqa badan wiil iska dhalinyaraa wanaagsan islaantii uuray qaaday ilaahu gabar ka dhig ilaahu gabar ka dhig iskaankii markii la saaray gabar waaye layidhi farxadda waxa lacag u sadaqaynayo waxa uu lacag bixinayo ayaabasa gabadhiyaa dhalatay gabadhii ma dhalatay haa cabdiraxmaan wax waali aha ku dhacay jacaylka gabadha yartaa uu u qaaday ma malayn karti saacad kasta wuu isagaa haynayay yaab maamadii way yaabta markuu seexanayo baalkiisay ku jirtaa way seexanaysaa gabadhaydu ku hayaa sanaday gaartay 2 sanay gaartay gabadhayda wiilashii de 5 kaloo wiilaa joogta wiilka ugu weyn waxaa la yidhahdaa mansuur wiilashii de waa garanaysaa masayr aabahood ma iyaga dhan wuu iloobayba xisaabta dhanba uguma jiraan wiilasha gabadhaanuu horaya gadaal u wadaa maamadii way yaabtay wiilashii way yaaban yihiin waa masayrsan yihiin gabadha wax yar haddii la gaarsiiyaa taabtay gabadhaydu ku hayaa war waxa kana maxay ahaayeen sidee waxu jiraan ninkan maxaa ku dhacay ma waashay sidee waxu jiraan ay leedahay islaantii falastiiniyadayd way yaaban tahay iskuulay gaartay gabadhi iskuulkiya maaragtay isagaa geynaya isagaa soo kaxaynaya hooyada wuxuu leeyahay kuwa kale adiga ka shaqayso gabadhan iida aniga
gabadhii kibir wiilashiya ku dul soconaysaa de waa iska garanaysaa cunug yaroo xadkiisa la dhaafiyo wuxuu rabo iska samaynayaa wiilashii ninkii maaga iska dhici odaga wuu ka dul deganayaa dhagahu ka garaacaya wiilashii waa isnaceen gabadhii way naceen gabadhii marka odaga colaadu wuxuu uga abuuray wiilashii dhexdooda u fiirsada mararka qaar carruurta aad dhashay inaad kala fadiso oo hebelaan jeclaa tira kuwa kale saamaynay ku keenaysaa marka qisada waxyaabaha ugu weyn oo qoraagu usoo qaatay waxaa ka mid ah saamaynta arrinkaa uu yeelan doono bal dhagaysta cunuga markaa ka badbadiso ilmaha kale inaad ka jeceshahay tusto waxa dhici kara wuxuu waqtigu isku rabaa sidii uu odaga ku socday maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa dhacay gabadha yarta ahayd ayaa waxay xadgudub ku samaysay wiilka weyn ee layidhaha mansuur marka gabadha waa walaashiis ka yar wuu soo qabtay wuu garaacay wuxuu yidhi maxaa iigu samaynaysaa waxaas iyadoo ooynaysa waxay u tagtay aabaheed odagii cabdiraxmaan ahaa isagoon dheg la qabta lahayn ayuu wiilkii inta u yimid ayuu siday tahay u garaacay gabadhaana gardarane ogow ayadaa wiilka dhibaatayse wiilkan uu iska dhiciyay oo wuu ka weyn yahay sidee gabadhayda u taaban kartaa maxaa kuu geeyaa wiilkii waa xanaaqay halkaasaa go-day dhuntaa go-day wuxuu go-aan ku gaaray wiilka gabadhan inuu ka takhalus waa 12 jir markaa wiilka war gabadhan odagan uu nagu dhibay naftaa ka qaada midii uu soo qaatay habeenada ka mid ah qolka jiifkay seexanaysaa weliba gabadha odaga iyo habarta meelaan ahayn ma seexanayso aabeed baalkiisa meel ahayn ma seexanayso odagiioo maqan ayaa guriga wuxuu soo galay wiilkiisii mansuur oo midi halkaas la eg wata oo dul taagan maamadii oo xagga jiiftay gabadhii raba gabadha inuu geliyo saas markuu albaabka usoo furay wuu malaysan waayey markaasaa waryaa maxaa samaynaysaa maxay tahay waxaa samaynaysaa waa la isku soo booday waa wiilkii wuxuu isku dayay inuu iska celi odaga wuxuu siri koryoos odagaan ma ku daynayo maanta gabadhiisa adoo dharbaaxay ayuu waxaa ogeed kugu sameeyey adoo toorey u qaatay kuma daynaye odaga iyo gabadhaba ka takhalusu isir oo fiirsada sheekadu sheeko caadiya maaha wiilkii odagii waa laysla qabsaday mididii waa laysla booday xaggaa layskala dhacay xaggaa maamadii way yaabataa waa qaalinaysaa war jooga gabadheedii ay saas isugu duubtay waxay leedahay war jooga sidee wax u jiraan odagii gacantaa mindida uga dhacday wiilkii waa laysla qabsaday wiilkiiya mindidii xabadka meelahan wadnaha agtiisa dabar ka tiri inta mindida laysla boodboodayana gabadha yarta ahayd ayaa mindidu ku dhacday garabkeeda dhiiggaa ka socda marka gabadha yartahay wiilkii markuu wadnaha bahasha uga dhacday wuu dhacay odagii gabadhii oo fiiriyey gabadhii oo baabaa ku haysa oo dhiigga saas uga qubanayo garabkeeda gabadhii uu la booday u fiirsada gabadhii uu inta la booday isbitaalka geeyey wiilkii meeshuu uga tegay ogow waa wiilkiisii waa curadkiisii mansuurkii meeshaa looga tegay gabadhii oo isbitaalka la aaday gabadhii oo isbitaalka geeyey waa la daweeyey qallinaa lagu sameeyey halbowlaa go-aa la yiri wixiyaa la boobsiiyey waa loo habeeyey gabadhii waa la daaweeyey maamadii waa shoogtay waxay samaysa ma garanayso wiilkii dhulkuu yaallaa odagii gabadhii u qaatay maamadii way soo kacday wiilkiiyaa la hadashay ma hadlayo dhiigaa meeshii dhan daatay maamadii ayada dhan way dawaqantay way sooxdayba maamadii odagii markii gabadhii isbitaalka inta uga soo tegay ayuu soo laabtay gurigii yimid guriga markuu yimid wuxuu arkay maamadiioo suuxsan oo waxa dhacay ku suuxday wiilkii halka iska taabtay noloshu waadaysay ninkii
odagii wiilkii wuxuu ogaaday inuu tegay waa xijaabtay wiilkii waa dhintay wuxuu sameeyey marka ma garanayo maxaa samaynaysaa cabdiraxmaanow hawshu waa xumaatay ilmihii kalena apartmentigu wuu weyn yahay guriga ay degan yihiin qayb kale iyaguna degan yihiin iyo qolo kale wiilkii uu soo qaaday meel guriga geeskiisa ah ayuu dhigay wuxuu usoo raadsaday bahasha dhulka lagu qodo maamadii intii way suuxsan tahay iyada dhan waa shoogtay waa suuxday meeshuu boobsiiyo god uu meesha ka qoday wiilkii inta marayar ku duubay ayuu meesha geliyey uu ku xabaalay asagaa shaqadaas dhan qabanaya cabdiraxmaanka waxa saaran waxa yar ma aha saacad iyo bar 2 saac ku dhawaado wuxuu dhan ku xalliyey markuu soo galay maamadii oo soo naaxday oo imaaday markaasay tiri wiilkaa cusbitaalkaan geeyo oo fiirsada wiilkii inta jiifay cusbitaalkaan geeyey gabadhina cusbitaalkii ku laabtay gabadhii u keenay oo xoogaa soo fiicnaat wiilkii aaway tiri hooyada wiilkii cusbitaalkee ii sheeg anaa doonanayo wiilkay u tagaye markii dambe wuxuu yidhi soo dhawow aan warku siiyo haye wiilki waa dhintay waxaana ku aasay meeshaan maamadi waa qaracan waa dhinta haa maxaa samaynaa hadda wiilkii ma dhintay waa dhintay mansuur ma tegay waa tegay gabadhiisu asaga haystaaba war ninku muxuu ahaa nin waalan waa waxa kan maxay ahaayeen markii dambe wuxuu yidhi dhegayso waxaan samaynaynaa carruurta inta noo hartay iyo annaga kulli waa guuraynaa weli sheekadan haddii dawladdu ogaato khatar kala imaanaysa in wiilkii aan dilnay aan xabaalnay waxaan u guuraynaa qadaraan u guuraynaa qadaraan guri weyn kulanahay gurigaasaan degaynaa meeshaasaan u guuraynaa carruurtii wixii dhan waxbarashadooda halkaasaa loo wareejinaa waayahay tiri waa la raray waa la guuray xaggaa la tegay maamadii wiilkii wuu dhintay maalintii say u qaracantay cunto ma cunayso iyada dhan way maskaxiyana isku dhex yaacday dhakhtaruu u geeyey dhakhtarkii wuxuu ku yidhi dhagayso gabadhan xaaskaaga ah xaalkeedu ma fiicna waxyaabo badan baan uga baqayaa xataa inay isdishaa dhici karta ee gabadha ka warqab ee ilaali waayahay yidhi soo u ilaalin jiray maalinta dambe meeluu aaday meel markuu aaday ilmihii iskuulka soo laabtay waxay u yimaadeen maamadii oo guriga saas u dhex taalla oo wixii dawo ah guriga yaalay hal mar cabtay oo ku dhimatay isagiiyo waceen uu soo cararay wuu yimid khalaas maamadii waa dhimatay halkaasay ku dhimatay muxuu waayey mansuur wiilkiisii wuu dhintay maamadii way dhimatay waxaasoo dhan maxaa sababaaya sheekadan baas gabadhayda dadka dhan ka fiican gabadhayda wiilashii oo dhan marka saasaa loo xanaaqsiyay ninkii marka wuxuu sameeyo aqoon waaye islaantii markay ka dhimatay wuxuu sameeyey ma garanayo wuu wareeray markii dambe wuxuu go-aan ku gaaray inuu dib ugu laabto imaaraadkuu dib ugu soo laabtay dawladdiiu isu dhiibay booliiskii u tegay wuxuu ku yidhi aniga saasaa dhacday wiil aan dhalay ayaan dilay waxaana ku aasay xadiiqada guriga ayaan ku aasay gabadhaydu dhibaatadaas inuu diluu damcay intaan ka celinayay saasaa dhacday qasadkaygu ma ahayn inaan dilo xaaskiina waxay u dhimatay shoogii iyo wixii ay ka naxday iyo wixii meesha ka dhacay darteed ayay isku booqday kadibna isu dishay marka musiibadaasaa nagu dhacday sidaasay wax u dhaceen waa kaas booliiskii way soo baareen meeshii xadiiqadiyaa la tegay waa la faagay wiilkii lafihiisii wixii inuu meesha ku aasay waa la arkay wixii oo dhan markii la xaqiijiyey wixii dhanaa laga qoray carruurtii kale wiilashii kale waxay ogaadeen wixii meesha ka dhacay oo rasmi ah markaasay ogaadeen odagii cuqdad kale usii qaadeen markaasee nin walba iskiisa uga guuray
odaygii marka xabsiyaa la geeyey waa la xaray xabsigii markii lagu xiray dee imaaraadku iyo carabtan iyo wax badanaa iska jira wiilka inuu asaga dhalay si qasada uusan u dilin gabadha wixii oo adiga waxbaa loo sameeyey qiilal badanaa loo sameeyey markii dambe waa la soo daayay ha la soo daayay muxuu kusoo baxay isagoo tacbaan ah oo xanuunsan shoogsan wareersan islaantii ka dhimatay wiilkii ka dhintay caruurtii kale waa ka tageen yaa u soo haray uu yidhi waxaa u soo haray uu yidhi gabadhii waagii uu isagu nafta agdhigay ayaa iyada waxay u noqotay inay la joogto marka wuxuu yidhi xaalka halkaasu maraa marka qisadu marka waxay tahay caruurta adiga aad dhashay waad kala jeclaan kartaa laakiin jacayl intaas la eg inaad kuwa kala dareensiiso cuqudaday qaadayaan dhibaatay qaadayaan qofku bini aadamka ah wax waa jeclaan karaa caruurtaada waad kala jeclaan kartaa laakiin xadka intaas la eg dhibaatadaasay leedahu leeh marka waana wax macquula waana wax la yaab leh oo lagu cibro qaadan karo marka qisadeena toddobaadkan arrinkaa cajiibka ayaynu ku soo qaadanay oo uu qoray qoraaga abu dalaal alxamaraani la yidhaahdo ee reer kuwait saxufiga ah marka idinkuna kollay fakari aragti waxaad arrintaa ka qabtaan noo soo qora qisadeena toddobaadkanna intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa laagareeya oo sheergareeya qisada haddii aada nagala socoto youtube-kana subscribe-ka ka iloobin inta aan mar kale qisooyin middan lamid a ku kulmayno meel kastoo aada joogtaan asxaabay nabadgelyo